gabar Ameerikaan ah ayaa gaarigeeda wuxuu uga halaabay waddada dhexdeeda waxayna soo xasuusatay inay guriga ku soo ilowday boorsadii ay ugu jireen taleefanka iyo lacagta waxayna sii taagnaatay waddada mana aysan garanaynin waxay samayso ilaa markii dambe uu uga muuqday waddada dhinaceeda nin fadhiya oo akhrinaya kitaab dharkiisa iyo qaabkiisana ay u muuqdaan inuu ka mid yahay fuqarada waxaa soo istaagay ninkii oo u soo dhowaaday gabadhii wuxuuna weydiiyey inay wax u baahan tahay gabadhii way ka cabsatay ninka waxay u malaysay inuu dhibaataynayo ama inuu ka mid yahay kuwa dembiilayaasha ah waxay ku tiri waxba uma baahni kadib ninkii wuxuu ku laabtay halkii uu fadhiyey markii hore wuxuuna bilaabay inuu sii wato kitaabkii uu akhrinayey xoogaa kadib wuxuu arkay gabadhii oo weli taagan waddada weliba iyadoo jahwareersan wuu soo laabtay wuxuuna ku yidhi waan hubaa inaad u baahan tahay caawimaad ee waan ku baryayaa igu kalsoonow is-adkayn adag iyo cabsi badan kadib waxay ku tidhi gaarigayga ayaa shidaalka ka dhammaaday wuxuu ku yidhi waa yahay ee igu siisu gaarigaaga dhexdiisa oo waan soo laabanayaa xoogaa kadib waxaa yaraatay cabsidii gabadha ay ka qabtay ninka waxayna ku sugaysay gaarigeeda dhexdiisa ilaa uu nus saac kadib soo laabtay wuxuuna weel yar ku waday shidaal si dhaqsi ah ayaa wuxuu ku furay qasnadda gaarigeeda wuxuuna bilaabay inuu ku shubo gaariga shidaal intaasi oo dhan gabadha waxay ku jirtay gaarigeeda oo kama aysan warhayn wax dhacaya markii uu ku shubay shidaalka kadib wuxuu soo wajahay dhankeeda wuxuuna ku yidhi iga raali noqo ma haysanin waxaanan ka ahayn $20 oo keliya laakiin waxaan rajaynayaa inay ku filan tahay inaad ku laabatid adiga oo nabad qaba gabadhii way ilmaysay waxayna ka dalbatay inuu u raaco gurigeeda si ay u soo siiso lacagta wuxuu ku yidhi muhiim ma ahan markii horeba aniga ma lahayn lacagta waxaa isiiyey qof kale anigoonan ka dalbanin gabadhii way baxday iyada oo ku fikiraysa inay u soo laabato iyadoo u sida lacag iyo dhar cusub markii ay u soo laabatay kadib waxay weydiisay magaciisa iyo xirfaddiisa waxayna ogaatay inuu yahay muslim u dhasha Afrika waxay ogaatay inuu muddo uu raadinayay shaqo kadibna uu waayey haddana uu halkan iska fariiso wakhtigiisa ugu badanina halkani uu ku qaato waxay kaloo ogaatay kitaabka uu akhrinayo inuu yahay qur-aanka kariimka ah kaasoo uu Allah ku soo dejiyey rasuulkiisa Muxamed naxariisii nabadgelyo korkiisa ha ahaatee kitaabkaasi oo ah mid dardaarmayo inay dadku iscaawiyaan halkii uu ka yiri rasuulka sallallahu alayhi wasallam mid ka mid ah axaadiistiisa sidan من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه به كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة gabadhii waxay u mahadcelisay ninkii wanaagsanaa kadibna waxay soo dhigtay qisadii dhex martay labadooda baraha bulshada waxay isku dayday inay u hesho shaqo waxayna u aruurisay $100,000 si uu ugu iibsado meel uu dego intaasoo idilna waxaa ka muhiimsanayd in gabadha iyo ehelkeeda iyo asxaabteeda iyo deriskeeda qaar ka mid ah ay garteen islaamka iyaduna waxay ahayd middii ugu horraysay ee islaamtay iyaga ka hor alla weyne wuxuu yidhi وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين
waxay leedahay maamo waayeel ah waxaan lahaa 3 wiil 3duba way wada guursadeen waxay tiri waxaan booqday midkii ugu weynaa waxaana ka dalbaday inaan la dego aan la noolaado isaga subaxdii ayaan ka dalbaday xaaskiisa inay ii keento biyo aan ku weyse qaato markii ay ii keentay kadib waan weyse qaatay waana tukaday markii aan tukaday kadib biyihii weysada ka soo haray ayaan ku shubay sariirtii aan ku jiifay subaxnimadii markii ay ii keentay shaax waxaan ku yidhi gabadhaydiyey tani waa xaalka dadka da'da ah waxaana ku kaadiyey firaashka xaaskii ayaa ku soo jeesatay oo ku qaylisay hooyadii waxayna tiri maamadii waxay i maqashiisay hadallo kuwa ugu xun waxayna iga dalbatay inaan dhaqo firaashka kadibna aan nadiifiyo waxayna igu tiri mar kale ha u laaban arrintani oo kale waxay leedahay maamadii waayeelka ahayd iyadoo sii wada qisada waxaan muujiyey caro daran waxaana dhaqay firaashkii waana qalajiyey waana baxay si aan ula dego wiilkayga dhexe yacnii midkii weynaa kan ku soo xigay waxay tiri maamadii waxaan sameeyey isla sidii aan sameeyey oo kale oo firaashkii ayaan ku shubay biyo xaaskiisii way xanaaqday wayna qaylisay waxayna arrinkii u sheegtay ninkeeda oo ahaa aniga wiilkayga ma uusan aamusiinin mana uusan dhibaataynin waxay tiri maamadii waan ka soo tegay agtooda si aan ula soo dego wiilkaygii ugu yaraa yacnii 3dii wiil midkii ugu yaraa waxay tiri maamadii waxaan imid guriga wiilkayga waxaana sameeyey isla sidii aan ku sameeyey xaasaskii wiilashayda midkii weynaa iyo kii dhexeba markii ay ii keentay xaaskiisa shaaxii subaxnimada kadibna aan u sheegay inaan ku kaadshay firaashka waxay igu tiri dhib ma lahan hooyo tani waa xaalka dadka da'da ah imise aynu ku soo kaadinay korkiina inagoo aad u yaryar kadibna waxay qaadday firaashkii wayna dhaqday kadibna way wanaajisay maamadii waayeelka ahayd waxay tiri waxaan ku dhahay xaaskii wiilkayga gabadhaydii waxaan leeyahay saaxiib waxayna ii dhiibtay lacag waxayna igu tiri ii soo iibi waxyaabaha ay dumarku isku qurxiyaan sida dahabka oo kale iyaduna cabirkeeda waa kaaga oo kale ee ii dhiib dahabka gacanta kuugu jira deedna way u dhiibtay gabadhii waxay aaday maamadii waayeelka ahayd suuqa waxayna haysatay lacag aad u fara badan lacagtii oo idinlan waxay ku soo iibisay dahab iyo waxyaabaha ay dumarku isku qurxiyaan kadibna waxay iskugu yeertay wiilasheeda iyo xaasaskooda waxayna soo bixisay dahabkii iyo waxyaabihii la isku qurxinayey waxayna u sheegtay inay biyo ahaayeen wixii ay ku shubaysay firaashka balse aysan ahayn kaadi siday moodayeen gabdhuhu kadibna waxay dahabkii gelisay gacanta xaaska wiilkeeda ugu yaraa waxayna tiri maamadii waa tan gabadhayda taasi oon ku badbaadayo agteeda inta aan waayeelka ahay cumrigaygana aan ku dhammaysanayo iyada agteeda labadii xaas ee kale aad ay u naxeen waxayna shalleeyeen shallayti middii u darnayd alla weyne kor ahaaye wuxuu yidhi hal jazaa'u alixsaani ila alixsaan samaan abaalkeedu ma waxaan ahayn baa samaan sidoo kale alla weyne wuxuu yidhi ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون silicii salma waxay ahayd gabar dhiganaysa jaamacad taasi oo ahayd mid ka qalinjabin rabtay dhowaan kuliyadda adabka salma waxay isguursadeen wiil ay aad isku jeclaayeen kaasi oo ahaa mid hal sana uga soo horreeyey jaamacadda salma iyo wiilkaasi guurkoodu muusan ahayn mid la og yahay ama midkii la yaqaanay salma ninkeeda muusan ahayn mid shaqeeya muddo kadib maalin ayuu salma ninkeeda uga farxiyey akhbaar qaboojisay laabteeda wuxuu u sheegay inuu helay shaqo taasi oo u safrayo 2 isbuuc kadib mushaar fiicanna uu ka qaadan doono wuxuuna u ballanqaaday inay guurkoodu soo bandhigi doonaan markii uu soo laabto kadib salma iyo ninkeeda waxay ku dabaaldegeen hoteel sagootin ay ku dheehan tahay farxad ayayna wada qaateen
laba isbuuc kadib wuu safray ninkii Salma 2 bilood kadib Salma waxaa la gaaray xafladeedii qalinjabinta markii ay soo dhamaatay xafladda Salma oo sidata shahaadadeedii waxay ku dhacday dhulka xanuun qabtay awgeed waxaana Salma ku soo baxay uur maalmuhu waxay ku sii socdeen si xanuun leh Salma saygeedana wax war ah lagama haynin ciwaanna muusan u soo dirin iyaduna dacwad muusan u xaraynin sidii uu ballan qaadayna muusan u samaynin sidii ayaana lagu waayay isagii xitaa ehelkiisu war maynan ka haynin waxay maalmuhu socdaanba Salma waxaa ku weynaaday uurkii ay lahayd fadeexa iyo ceeb ayaana ka dhacday Salma waxay gashay xaalad aysan ku fikiri jirin hal wado kaliya ayna Salma ku dhaqaaqday iyadoona la kaashanaynin dhakhtar si uusan u weydiinin dhakhtarka qofka ka mas'uulka ah Salmo yacni zawjkeeda ama aabaheed wadadaasi oo ahayd inay iska soo tuurto cunuga yar ee ku jira caloosheeda waxay isku dayday inay iska soo rido ilmaha kadibna aaday u dhiig baxday waxayna ku hor dhimatay Salma reerkeedoo arkaya hooyadeed iyo walaalaheed kuwaasoo ay ka qarisay guurkeedii ahaa qudbasirada iyo uurkii ay qaadayba balse geerideedii kadib ayay ogaadeen inay gabadhoodii u keentay ceeb وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير waxaa jiray nin aad u qalbi wanaagsanaa wuxuuna u saaxiib ahaa akhlaaq wanaagsan taasi oo dadkoo dhan uu kula dhaqmi jiray gaar ahaan shaqaalaha ay wada shaqeeyaan iyo dhammaan dadka masaakiinta ah wuxuu ahaa mid ku booqda isbitaalada dadka xanuunsanaya isagoo ku camalfalaya xadiiskii rasuulka sallallahu calayhi wasallam ee ahaa axabbu nnaasi ila allaahi anfacahum linnaas oo micnaheedu yahay ilaahay dadka wuxuu ugu jecel yahay kuwa dadka anfaca wuxuu ahaa ninkani mid raadinayay shaqo cusub wuxuuna si niyad leh ku weydiistay Allah inuu u sahlo shaqo ducadiisana Allah wuu ka aqbalay wuxuuna shaqo ka helay warshad lagu qaboojin jiray malaayga ninkii isbuuc markii uu shaqaynayay waxaa si dulmile ku eedeeyey ninka ilaaliyaha ka ah warshadda wuxuuna ku eedeeyey inuu dhumiyey lacagtii ay warshaddu shaqaynaysay muddo 1 sano ah markii uu ogaaday maamulkii warshadda arrintaasi xaqiiqadeeda wuxuu go'aansaday inuu ciqaabo ninkii ilaaliyaha ka ahaa warshadda ee sida beentaa u soo eedeeyey ninkii kale shaqaalaha ahaa laakiinse ninkii wanaagsanaa wuu iska cafiyey wuxuuna ka dalbaday maamulka inuusan ciqaabin maalmaha ka mid a markii ay qaar ka mid a shaqaalaha baxeen kadib ninkii wanaagsanaa wuxuu galay qolka lagu qaboojiyo malaayga si uu u dhammaystirto shaqadiisa qabyada ka ahayd ninkii waxaa ku xirmay albaabkii isaga oo ku jira gudaha wuxuuna ka shakiyey inuu u dhimanayo qabowgan daran awgiisa wuxuu bilaabay inuu qayliyo misna uu albaabka aad u garaaco saacado kadib waxaa ka furay albaabka ninkii ilaalinayay warshadda wuxuuna arkay ninkii oo yaala dhulka wuxuuna sabab u noqday inuu badbaadiyo maamulkii warshadda wuxuu weydiiyey ninkii ilaaliyaha ahaa sida uu ku ogaaday in qolka lagu qaboojiyo malaayga uu ku jiray nin wuxuu yidhi ninkii ilaaliyaha ahaa aniga waxaan halkani ka shaqaynayaa muddo 3 sano ah shaqaalahan hal qof kama ogaan karo joogitaankiisa iyo maqnaanshihiisa balse ninkani wanaagsan wuxuu ahaa mid markuu imaanayo shaqada albaabka igu soo salaamo gacantana iga dhunkada marka uu baxayana igu macsalaameeya dhoola cadayntiisa quruxda badan wuxuuna isii su'aali jiray xaalka qoyskayga markii uu ii cafiyey qaladkii aan ka galayna waxaan u qaaday jacayl mar walboon arkana aad ayaan ugu dhoola caddayn jiray maantana markii ay ahayd wakhtigii uu soo bixi jiray waan sugay si uu ii macsalaameeyo sidii caadada ahaydba balse muusan soo bixin markaana waxaan bilaabay inaan ka raadiyo warshadda dhexdeeda ilaa uu markii dambe qalbigayga ii sheegay inaan ka soo eego qolka lagu qaboojiyo malaayga markii aan furay albaabka kadib waxaan eegay isagoo u dhaxeeya nolol iyo geeri waxaana u degdegay inaan badbaadiyo wuxuu qalbigayga ku furtay wanaaggiisa iyo habdhaqankiisa qurxoon anigana waan ku faraxsanahay inuu Allah i waafajiyey inaan u sameeyo wanaag alla weyne wuxuu yidhi
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. nin ayaa wuxuu guursaday haweenay qiso jacayl oo qurxoon markii ay dhex martay hal sano kadib ninkii xaaskiisa waxay u dhashay wiil qurux badan wiilkoodii yaraa markii ay da'diisu gaartay 5 sano aabbihiisa wuxuu go'aansaday inuu xaaskiisa u wado dalxiis badda ah si ay u soo ilowdo dhibaatooyinka nolosha iyo daalka nolosha wiilkoodii yaraana waxay uga tageen ayeeydiisa kadib markii ay gudagaleen dalxiiskoodii ayna raaceen markabkii dalxiiska iyagoo ay wax walba sidii ay doonayeen ugu socdaan ayuu hal mar sikadiisa u gadoomay markabkii kadib markii uu qalibmay markabkii waxay ku sigteen inay biyaha ku qarqamaan mana aysan haysan waxaanan ka ahayn hal xabbo doonta baxsashada ama badbaadada ah hal qof oo keliya unbaana ku badbaadi karay ninkii xaaskiisa ayuu ka soo tegey wuxuuna u degdegay si uu u helo cid u badbaadisa xaaskiisa xaaskiisuna cod dheer ayay ku lahayd daryeel oo ilaali wiilkeennii yaraa intaa kadib waxaa qarqamay markabkii xaaskiisana halkaasi ayay ku geeriyootay kadib ninkii wuxuu aaday gurigiisa wuxuuna daryeelay wiilkoodii ay keligiisa dunida ka dhaleen wiilkii markii uu weynaaday kadibna uu ogaaday sidii ay u geeriyootay hooyadiisa wuxuu malaxun ka aaminay aabbihiisa qalbigiisana wuxuu nacay inuu la noolaado aabbihiisa wuxuuna sidaasi ahaa ilaa uu jaamacadda ka galo maalin maalmaha ka mid ayaa waxaa soo galay hoolka jaamacadda macallinkiisa ardayduna waxay u sheegeen muxaadarada inay ku saabsan tahay waxyaabaha lagu xukumayo muuqaalkooda sare haddii aynu maskax ahaan u raadino iyadoo ay jiraan caddaymo aynu fahmi karno xaqiiqada macallinkii wuxuu u sheegay ardaydii qiso wuxuuna ku yidhi mar ayaa waxaa aad u xanuunsatay gabar yar aabbaheed markii u waday isbitaalka dhakhtarkii wuxuu u qoray daawo aad u fara badan oo u baahan daawadaasi in lagu soo iibiyo lacag aad u fara badan si loo daaweeyo gabadha yari aabbuhuna muusan awoodin lacagtaasi faraha badan ninkii wuxuu wacay walaalkiisa wuxuuna ka dalbaday inuu u keeno lacagtaasi walaalkiisa wuxuu ku yidhi saacado isug si aan lacagta kuugu keeno ninkii wuxuu mar labaad wacay walaalkiisa laakiinse wuxuu ka war helay teelkii walaalkiisa oo dansan kadibna wuxuu isku dayey inuu marar badan waco balse natiijadu sideedii iskama beddelin oo teelkii walaalkiisa sidii ayuu u dansanaa ninkii wuxuu ka malaysay walaalkiisa malaxun wuxuuna bilaabay inuu nafsaddiisa la hadlo isagoo isku odhanaya sidee ayuu ii khiyaamay walaalkayga uma cafin doono weligiisa ballanka baxaasi uu igu sameeyey ninkii isagoo u dhexeeya muruge iyo xanaaq ayaa waxaa la soo garaacay gambaleelka guriga ninkii markii uu furay albaabkii wuxuuba ka war helay walaalkiisa u sida lacagtii uu ka dalbaday wuxuuna ku yidhi iga raalli noqo walaal waayo taleefonkayga waan ku iibin waayey sida degdegga ah ee aan doonayey ninkii wuxuu laabta gelshay walaalkiisa indhihiisu ay ka socdeen markaa ilin wuxuuna ka dalbaday cafis iyo saamaxaad wuxuuna ku yidhi run ayuu sheegay rasuulkii alle naxariisii nabadgelyo korkiisa ha ahaatee markii uu yidhi iska jira malada maxaa yeelay maladu waa hadal midka ugu beenta weyn markii ay dhammaatay muxaadaradii wiilkii wuxuu u soo laabtay guriga isagoo laabtiisu ay xoogaa ka xasilan tahay shakigii uu aabbihiisa u qabay markii uu yimid guriga wuxuu bilaabay inuu gedgediyo yacnii uu baaro dharkii uu lahaa aabbihiisa si uu u daawado sawirradii aabbihiisa iyo hooyadiisa xiise uu u qabo awgeed wuxuu helay warqad xasuusa uu qoray aabbihiisa waxaana ku qornayd warqadda sida tan kadib markii ay ii sheegeen dhakhaatiirta in xaaskayga uu hayo xanuun ay la dhiman karto waxaan ula safray dalxiis badda ah si ay u aragto caalamka xanuunka hayana uu uga khafiifo
balse nasiib xumo waxaana la gadoomay markabkii aan saarnayn waxaana go'aansannay in midkeen uu badbaado cunugeenna yar dartiisa markii uu quusay markabkii anigoo arkaya waxaan jeclaystay inaan anigana isku tuuro badda oo aan wada dhimanno aniga iyo iyadaba wuxuu bilaabay inuu u ooyo si saa'ida markii uu aabbihiisa shaqada ka soo laabtay uuna yimid guriga wiilkii wuxuu habsiiyey aabbihiisa muusanna ku dhawaaqin waxaanan ka ahayn hal jumladoo ahayd isaamax aabbo alla weyne wuxuu yidhi يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير qisadani waxay ku dhacday nin kaasi oo ahaa mid ku soo koray ogoonnimo wuxuu la noolaa hooyadiisa waxayna u halgantay keliya sidii ugu noolaan lahaa nolol wanaagsan waxay ku dadaashay sidii ay ugu tarbiyeen lahayd daacadda allaah ilaa uu ka dhammeeyey jaamacadda kadibna wuxuu helay shaqo hooyadiisa waxay ku waanisay inuu guursado gabar u saaxiib ah diin iyo akhlaaq taasi oo ku kaalmaynaysa ka cabsashada allaah una kaxaynaysa jannada balse isaga wuxuu ahaa mid aad u jeclaa gabar ay jaamacadda ku ahaayeen asxaab taasi oo ahayd mid ka dhalatay qoys maalqabayn ah waxay ahayd gabar qurux badan balse maysan ahayn mid joogtaynaysa waxa ay diintu fartay wuxuu ku yidhi hooyadiisa hooya waan awoodaa inaan beddelo iyada waxaana ka yeelayaa mid joogtaysa salaadda iyo akhrinta qur-aanka iyo wixii uu allaah raalli ka yahay markii ay gudagaleen diyaarinta guurkooda gabadhu maysan ahayn mid ku qanacsan inay la noolaato isaga hooyadiisa balse ehelkeeda ayaa u sheegay inay tahay qof waayeel ah sannad ama 2 sano kadibna ay dhimanayso gabadhoodii sidaasi ayay ku qanciyeen wayna aqbashay toddobabaxoodii kadib maalin ayay waxay soo wada fadhiisteen isaga iyo xaaskiisa iyo hooyadiisa miis si ay ugu wada cunteeyaan isla markiiba waxaa si cara leh u istaagtay xaaskiisa waxayna aaday qolkeeda markii uu la cunay hooyadiisa cuntada kadib ayuu xaaskiisa ugu tegay qolka wuxuu ku yidhi maxaa kugu dhacay ood uga soo kacday cuntada waxay ku tidhi hooyadaa gacmaheedu waxay ahaayeen wasakh mana doonayo inaan la cuno cunto ee u samay iyada miis kale si ay keligeeda ugu cunto cuntada joogitaankeedana cidhiiri ayuu igu hayaa sidaasi ayay tidhi xaaskiisa si deggan ayuu ugu jawaabay ninkeeda wuxuuna ku yidhi iyadu ma lahan cid kale aan ka ahayn aniga waadna og tahay inay tahay qof waayeel ah waxayna u baahan tahay inaan xanaaneeyo aniga waxay ku tidhi xaaskiisa waxaad geysaa hooyadaada meesha lagu xanaaneeyo waayeelada wuxuu ku yidhi waa fikrad fiican laakiin haddaayay markii aad cuntada ka soo kacday kadib waxay soo wacay waalidkaaga waxayna igu dhaheen berita inoo imaada adiga iyo xaaskaaga tolow maxay tahay sababtana loogu yeedhay waxay tidhi anigaba way soo waceen laakiin markii aan tagna kadib ayaan ogaan doonnaa sababtana loogu yeedhay wuxuu ku laabtay hooyadiisa waxay ku tidhi hooya maxaa ku dhacay xaaskaaga maxay cuntada uga kacday miyay xanuunsanaysaa wuxuu ku yidhi hooya haddii ay xanuunsanayso waxaan u wici lahaa dhakhtar hooya ha welwelin xoogaa ayay nasanaysaa iyada ayaana cunaysa hadhow cuntada berina waxaan kuu kaxayn doonaa meel ay ku xalismi doonaan wax walba waxaana rajaynayaa inaadan iga diidin waxay ku tidhi hooya kaama diidayo waxna waayo waxaan ogahay inaadan samaynaynin wuxuusan allaah raalli ka ahayn
maalintii labaad waxay aadeen isaga iyo hooyadiisa iyo xaaskiisa guriga xaaskiisa ee looga yeedhay markii ay tageen guriga waxaa loo diyaariyey miis cunto ah xaaskiisa aabbaheed iyo isagana waxay iskula baxeen gooni si ay u wada hadlaan wuxuu yidhi aabbihii gabadhayda waxay ku sugan tahay murugo sababtuna waxay tahay joogitaanka idinla joogta hooyada wuxuuna ugu handaday inaysan guriga kula noqon doonin xaaskiisa haddii uusan u aqbalin wixii ay ka dalbatay oo ahayd inuu geeyo hooyadiisa meesha lagu xanaaneeyo waayeelada wuu dhoola caddeeyey ninkii wuxuuna aaday miiskii lagu diyaariyey cuntada si uu uga eego inay fadhido hooyadiisa misna wuxuu ka waayey hooyadiisa wuxuuna ogaaday inay xaaskiisu u kaxaysay dhanka jikada si ay cuntada ula cunto shaqaalaha guriga ka shaqeeya wuxuu eegay reerkii guriga oo wada fadhiya miiska wuxuu si xanaaq leh u yidhi waxaad tihiin reer aad u xun ma waxaad sidaasi yeesheen beerkii aan ka soo go'ay ma awoodi inaan ka fogaado hooyaday taasi oo u soo dhibtootay keliya sidii ay ii korin lahayd aniga wuxuu u yeedhay hooyadiisa waxay ka soo baxday jikada iyadoonan fahansanayn waxa dhacay wuxuu ka dhunkaday hooyadiisa dhabannada isagoo aad u ilmaynaya wuxuuna xambaaray hooyadiisa wuxuuna ku yidhi hooyo soo bax oo raalli ahaanshahaaga igu kaxay jannada alla weyne kor ahaaye wuxuu yidhi وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا tuulo ka mida tuulooyinka ayaa mar ku xanuunsatay haweenay ninkeedana marar badan ayuu dhaqaatiirta u geeyey ilaa uu uga sheegay dhakhtar ka mid a dhaqaatiirta ku sugnay tuulada in xaaskiisay u baahan tahay in lagu sameeyo qaliin dhaawac ku yaalo awgeed wuxuuna u sheegay in dhakhtarka qaliinka sameeya inuu joogo caasimadda wuxuu kaloo u sheegay inay waajib ku tahay inuu u wado xaaskiisa dhakhtarka xirfaddaasi leh ninkii wuxuu u waday xaaskiisa caasimadda wuxuuna geeyey isbitaalkii laga helayey dhakhtarkaasi xaaskiisana waxaa lagu sameeyey baaritaan waxaana loo xadiday loona ballanqaaday xilligii ay geli lahayd qaliinka markii haweenaydii lagu samayn rabay qaliinka waxay gashay koomo ninkii wuxuu wareystay dhakhtar ka mid a dhaqaatiirtii ka shaqaynaysay isbitaalka si uu u ogaado xaalka xaaskiisa dhakhtarkii ayaa si cara leh wuxuu ku yidhi maxaad u keentay haweenaydan maxaa yeelay waxay ku dhowdahay inay geeriyooto haddana la noqo xaaskaaga mar kalena hawla imaan dhaqaatiirta waayo geerideedaba wax kama harin sidaasi ayuu yidhi ninkii dhakhtarka ahaa ninkii aad ayuu u murugooday markii uu dhakhtarka ka dhaqaaqay waxaa ag timid gabarh dhallinyaro ah waxayna maqlaysay dhakhtarka wixii uu ku lahaa ninka gabadhii ninkii ayay eegtay wayna dhoola caddaysay waxayna ku tidhi aaway dhakhtarkii qalliinka ku samaynayay xaaskaaga markii uu u sheegay dhakhtarka magaciisa aaday ula cajabtay
waxayna ku tiri haddaba miyuu aqbalay inuu qalliinka ku sameeyo xaaskaaga isagu wuxuu ka mid yahay dhaqaatiirta kuwa ugu caansan wakhti badanna ma helo wuxuuna qalliin ku sameeyey 10,000 oo qof kuwaasoo la xanuunsanaya xanuunka ay xaaskaagu la xanuunsanayso weligiisana kuma uusan fashilmin hal qalliin ninkii markii uu maqlay hadalkaasi wuu dhoola caddeeyey aad ayuuna u farxay wuxuuna fiiriyey xaaskiisa alla weyne wuxuu yidhi قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم oo micnaheedu yahay hadal wanaagsan iyo dhaafid yacni saamaxaad ayaa ka khayr badan sadaqa uu raaco dhib rabbina waa hodan dulqaad badan daqiiqado kadib ninkii xaaskiisa waxaa la geliyey qolkii qalliinka gabadhii sidatay dharka dhaqaatiirta waxay u carartay dhanka dhakhtarka u sarreeya isbitaalka waxayna u sheegtay dhakhtarkii ku dhahay ninka in xaaskiisu ay dhimanayso waxayna soo xasuusisay xadiiskii rasuulka naxariisii nabadgelyo korkiisa ha ahaatee oo ahaa إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الأجل فإن ذلك لا يرد شيئا وهو يطيب بنفس المريض kadib markii uu ku dhammaaday qalliinkii guul ninkii wuxuu u mahadceliyey dhakhtarka wuxuuna raadiyey gabadhii u bishaaraysay wuxuuna u maleeyey inay tahay kalkaaliso markii uu helay kadib wuu u mahadceliyey wuxuuna rabay inuu siiyo xoogaa lacaga laakiinse way ka diiday waxayna ku tiri cilmiga waxaa ku soo arooray in bukaanka xal walba uu yahay xanuunkiisa inaanan niyadda laga jebin waxayna ku tiri waxaan dareemay inuu ku saameeyey hadalkii uu kugu yidhi dhakhtarka waxaan sugay ilaa uu ka tago si aan niyadda ugu dhiso xaaskaaga si ay hadhow ugu kalsoonaato dhakhtarkeeda waxay kaloo ku tiri anigu ma ii kalkaaliso waxaan ahay dhakhtarad maantana waxaan halkan ku lahaa qalliin mana isgaranayno dhakhtarkii xaaskaaga qalliinka ku sameeyey keliya waxaan ku dhaqaaqay xadiiskii rasuulka naxariistii nabadgelyo korkiisa ha ahaatee oo ahaa بشروا ولا تنفروا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما haweenay ayaa waxaa asiibay keliya xanuun kadibna waxaa ka xumaatay keli aad ayayna ula xanuunsatay waxaana lagu celcelin jiray isbitaalka marar badanna waa la daaweeyey kadib haweenaydii waxay dalbatay in loogu tabarruco keli ay ku bixinayso lacag dhan 20,000 oo riyaal dadkii oo dhan waxaa gaaray hadalkii dadka uu hadalku gaaray waxaa ka mid ahayd marwo timid isbitaalka iyada oo raalli ka ahayd in la baaro si ay kelideeda ugu bixiso haweenaydii xanuunsanaysay markii la soo gaaray maalintii lagu ballamay in qalliinka lagu sameeyo marwadii kelideeda caafimaadka qabtay bixin rabtay haweenaydii xanuunsanaysay waxay u soo gashay marwadii ugu tabarrucaysay keliyaheeda iyadoo aad u ooynaysa haweenaydii xanuunsanaysay aad ay ula yaabtay waxayna weydiisay adiga miyaa lagugu soo qasbay inaad kelidaada bixiso waana kuma qofka kugu soo qasbay arrinkani inaad ku dhaqaaqdid waxay tiri marwadii sadaqaysanaysay kelideeda cidna igumaysan qasbin oonan ka ahayn faqriga aan ku suganahay iyo lacagta aan aadka ugu baahanahay markii ay sidaasi tiri kadib marwadii aaday u sii ooysay haweenaydii xanuunsanaysay ayaa istaagtay si ay u dejiso marwada waxayna ku tiri waan ku siinayaa lacagtii aan ku siin lahaa marka aad kelida ii bixiso mana kaa rabo waxna marwadii way aamini weysay hadalkii ay haweenaydii ku tiri waxayna u faraxday si saa'ida waxayna bilowday inay ilmayso ilmo farxada waxay ku tiri aad ayaad u mahadsan tahay waxayna ugu ducaysay inuu alla siiyo caafimaad taama maalmo kadib haweenaydii xanuunsanaysay waxay timid isbitaalka si loogu sameeyo xoogaa baaritaana markii la baaray kadib dhaqaatiirtii waxay ku arkeen waxay la cajabeen oo kama aysan helin haweenaydii keliyaheeda wax xanuuna oo ilaahay ayaa ku caafiyey naxariistiisa iyo deeqsinimadiisa rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi ku daaweeya midka idinka xanuunsanayo sadaqo wuxuu kaloo yidhi rasuulka sallallahu calayhi wasallam qofkii u fududeeyo qof kale dhibaato haysatay isagana allah ayaa u fududaynaya adduun iyo aakhiraba
alla weyne kor ahaaye wuxuu yidhi الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. waxaa geeriyooday nin faqiir ah muusan ahayn mid dunida ka milkiyey waxaan ka ahayn akhlaaq wanaagsan xaaskiisana wuxuu uga tegey 2 carruura axmed waa wiilka ugu weyn carruurta uu ka tegey da'diisuna waa 5 jir wuxuuna xifdisanaa qaar ka mid ah aayadaha qur-aanka waxaana baray aabbihiisa wuxuu kaloo ka tegey aabbahaasi faqiirka ahaa gabar la dhaho shaymaa da'deeduna waxay ahayd 1 sano maalintii tacsida axmed wuxuu maqlay dadkii tacsida ka soo qaybgalay oo wada leh qoyskani halkee bay ka keenayaan cunto axmed waxaa aad uga sii murjisay oohinta hooyadiisa waxayna xambaarsanayd walaashiisa shaymaa waxayna ku lahayd waan dayacannay isla markiiba axmed wuu istaagay wuxuuna hooyadiisa ka qaaday walaashiisa wuxuuna ku dhahay waxba ha ka cabsan walaasheeda shaymaayey maxaa yeelay ilaahay nama dayacayo marnaba markii ay dhammaatay tacsida kadib axmed hooyadiisa waxay si murugale ku tiri 1 sano kadib waxaa waajiba inaan ku geeyo madaraso arrinkaasina wuxuu u baahan yahay lacag mana garanayo sidaan u dabarayo xitaa ma garanayo sidaan u dabari lahaa cuntadaan cunayno qarashkeeda axmed wuu dhoola caddeeyey wuxuuna habsiiyey hooyadiisa wuxuuna ku yidhi 1 jumlad oo keliya oo ahayd allaahi nama dayacayo geeridii aabbahood waxaa ka soo wareegatay 1 bil gurigoodana muusan soo gelin 1 qof xitaa si uu ogaado xaalkooda axmed hooyadiisa wuxuu u soo jeediyey fikrad ah inuu shaqaysto si uu u galo madaraso walaashiisa iyo hooyadiisana si ay u helaan waxay cunaan balse hooyadiisa way ka diiday arrinkaasi waxayna ku tiri hooyo weli waad yar tahay lacagtaad soo shaqaysana nama kaafinayso waxaa la gaaray xilligii uu geli lahaa axmed madarasada hooyadiisa waxay ku geysay madarasada lacag ay ka heli jirtay dharka ay u dhaqdo deriska axmed wuxuu galay madarasada wuxuuna kala kulmay saaxiibadiisa jeesjees badan dharka uu sito darteed iyo buugaagta uu gacanta ku sito waayo ma uusan lahayn boorso uu ku rito buugaagta balse ihtimaam ma uusan siin jirin hadalladooda sanadkii 2aad axmed hooyadiisa wuxuu kula taliyey inay dubto rooti dhexda laga gelinayo salar ama ansalaato si uu ugu qaado madaxiisa kadibna ugu soo iibiyo magaalo deris la ahay tuuladooda maalintii 1aad axmed wuxuu soo iibiyey rootigii oo idil maalmo kadibna wuxuu helay macaamiil badan oo ka iibsata axmed wuxuu ka dalbaday hooyadiisa inay badiso rootiga ilaahay idinkiisana axmed wuxuu ku guulaysanayay madarasadiisii sannado kadibna madarasada waxaa ku soo biirtay walaashiisa ka yarayd ee lagu magacaabayey shaymaa wuxuuna kula noolaaday hooyadiisa iyo walaashiisa nolol wanaagsan ilaa uu ka dhammeeyey jaamacadda kadib wuxuu u furay mashruuc rootigii ay samayn jirtay hooyadiisa iyo qaar ka mid ah haweenka ku sugnaa tuulada sanadba sanadkii ku sii xigay waxaa sii ballaaranayay mashruuca axmed walaashiisa shaymaa waxay dhammaysay jaamacadda maalmaha ka mida isagoo u socda tuulo ka mida tuulooyinkay degganaayeen si uu la soo galo heshiis inuu geeyo rootiga si loogu iibiyo wuxuu arkay ehelkii degganaa tuulada oo wada nin mayda dadka geeskoodana waxaa taagnayd haweenayda uu ka dhintay ninka waxay gacanta ku haysay wiilkeeda yar iyadoo ooynaysa ayay ku lahayd waan dayacannay geeridii aabbaha kadib axmed wuxuu soo xasuustay maalintii uu dhimanayay aabbihiisa da'diisuna ay ahayd wiilka yar da'diisa oo kale hooyadiisana ay ku lahayd sidaasi oo kale axmed wuxuu kaloo soo xasuustay hadalkii rasuulka sala allahu calayhi wasallam oo ahaa qofkii salaaxa madaxa agoonka ma salaaxayo madaxiisa ilaa allaah mooye waxaana u ahaaday ajir tin walba uu ka salaaxo madaxa agoonka
axmed wuxuu aaday dhanka cunuggii yaraa wuuna dhunkaday hooyadiisana wuxuu siiyey lacag badan oo ku filan inay ugu shaqayso carruurteeda hooyadii aad ay u faraxday waxayna ku tidhi dayn ayay ugu tahay waana ku siin doonaa goordhow inshaa allah axmed wuxuu ku yidhi haa deen way kugu tahay laakiin ha ii soo celinin aniga ee sii wiil yar oo dhintay waalidkiisa oo ay macquul tahay inuu dayacmo garabkiisana istaag xitaa haddii aadan garanaynin axmed wuxuu u soo laabtay gurigiisa isagoo allah ka baryayo inay deyntaasi uu gaarsiiyo qofba qof kale caawimaadna ay u noqoto qof walba oo wax u baahan alla weyne wuxuu yidhi من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور laba waalid ayaa waxay u dooreen wiilkooda gabar saalixada oo Allah uga baqda umuur walba guurkii kadib ninkii iyo xaaskiisii waxay degeen gurigoodii cusbaa xaaskiisa waxay ahayd mid soo booqata labadiisa waalid isbuuc walba waxayna ka caawin jirtay wax walba ay u baahan yihiin wiilkoodana muusan ahayn mid soo booqda waalidiintiisa isagoo markaasi sheeganayay inuu mashquul yahay xaaskiisana arrintaasi aad ay uga murugoon jirtay hal sana kadib xaaskiisa waxay u dhashay wiil qurux badan balse intii ayna ku farxin cunugeeda dhalashadiisa waxaa dhimatay sodohdeeda sidoo kale ninkeeda aabbihiisana caafimaadkiisu aad ayuu u sii xumaanayey wuxuuna noqday keligiisa kadib markii ay dhimatay xaaskiisii ku weelin jirtay dunida ninkii xaaskiisa waxay u soo bandhigtay arrin taasi oo ahayd inuu baxo oo uu soo wado aabbihiisa si uu la noolaado iyaga waxayna ku tidhi aniga ayaa u xil saaran inaan u adeego aan daryeelo aabbaha ninkii wuu aqbalay arrinkii kuwalcelin badan kadibna wuu baxay wuxuuna soo waday aabbihiisa maalmo kadib aabbihii waayeelka ahaa waxaa isbeddelay xaaladdiisa iyo caafimaadkiisa caqligiisana wuxuu noqday mid ilaabay waxyaabo badan wuxuuna bilaabay inuu u dhaqmo sida carruurta oo kale wiilkiisuna arrintii waxay ka yeeshay inuu u xanaaqo aabbihiisa mar walbuu isku dayo inuu u gacan qaado aabbihiisa xaaskiisa ayaa ka diidi jirtay waxayna soo xasuusin jirtay hadalkii rasuulka sallallahu calayhi wasallam ee ahaa waalidku waa albaabada jannada kuwa ugu dhexe haddii aad doontid iska dayac albaabadaasi ama haddii aad doontid xifdiso inkastuu uu sidiisii u sii xumayn jiray aabbihiisa wuxuu aad ugu naxariisan jiray cunugiisa u dhalay isaga aad ayuuna u ciyaarsiin jiray wuxuuna aad uga baqi jiray inuu aabbihiisa u soo dhowaado cunugga uu dhalay mar walba uu xambaarana wuxuu ka welweli jiray inuu dilo cunugga isagoonan ogayn ninkii si uu u tirtiro cabsidiisa wuxuu go'aansaday inuu iska fogeeyo aabbihiisa maalmaha ka mid ayaa wuxuu gaarigiisa ku qaaday xaaskiisa iyo aabbihiisa iyo cunuggiisa si ay ugu soo qaataan dalxiis meel aad u jawi deggan oo ka mid a saxaraha markii ay tageen saxaraha waxay wada cuneen cunto kadib markii ay cuneen cuntadii ninkii xaaskiisa ayaa wuxuu ka dalbaday inay xambaarto cunuggeeda gaarigana ay sii raacaan
isaga aabbihiisana ay meesha uga tagto si uu u fuliyo ujeedkiisa. wuxuuba ku yidhi laga yaabaa inuu qof badbaadiyo ama ay dhurwaayadu cunaan. xaaskiisu way u dhoola caddaysay wayna ka aqbashay dalabkiisa. markii ay soo raaceen gaariga, ninkii xaaskiisa wuxuu ka dalbaday inay cunuga u dhiibto si uu u ciyaarsiiyo una dhunkado. waxay u sheegtay xaaskiisu inay cunugoodii uga soo tagtay isaga aabbihiisa. waxayna ku tidhi maxay kuu taraysaa inuu kula joogo haddii uuba kugu samaynayo markii uu weynaado sidii aad ku samaysay adiga aabbahaaga, isagana beri ayuu kaaga soo tegayaa saxaraha si ay kuu cunaan dhurwaayada. ninkii aad ayuu u qiirooday wuxuuna ku ooyey cod aad u dheer, wuxuuna gaarigii ula laabtay si degdega meeshii uga soo tegay aabbihiisa iyo cunugiisa. markii uu ku laabtay meesha kadib wuxuu arkay aabbihiisoo xambaarsan cunugiisa, agtiisana ay yaalaan dhagaxaan uu isaga celinayay dhurwaayada. indhihiisana waxaa ka dareerayay ilin, carabkiisuna wuu dhaqdhaqaaqayey, wuxuuna ku dhawaaqayay duco. deedna dhurwaayadii way baxsadeen. ninkii wuxuu habsiiyey aabbihiisa isagoo oynaya, wuxuuna ka dalbaday inuu u cafiyo wixii uu ku sameeyey. aabbihii waayeelka ahaa muusan ahayn qof wax xasuusanaya, wuuna u dhoola caddeeyey muusanna dhibaatayn. intaasi wixii ka dembeeyey ninkii wuxuu noqday qof midka ugu baarisan, waxaana siyaaday jacaylkii u qabay xaaskiisa saalixadda ahayd oo u dhigtay cashirkaasi. alla weyne kor ahaaya wuxuu yidhi: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. habeenay ahayd ciid, nin ayaa wuxuu soo galay meel lagu iibiyo waxyaabaha ay dumarku isku qurxiyaan. waxaa la socotay xaaskiisa, dhinaciisana waxaa taagnayd hooyadiisa, taasi oo markaasi xambaarsanayd cunugiisa. ninkii xaaskiisa ayaa waxay iibsatay dahab aad u fara badan. ninkii dahabka iibinayey ayaa wuxuu ku yidhi, waa imise xisaabtaadu? ninkii dahabka iibinayey wuxuu yidhi, waa 20,100 riyaal. ninkii wuxuu eegay miisaanka, wuxuuna ku arkay xisaabtu inay tahay keliya 20,000. ninkii wuxuu weydiiyey ninkii dahabka iibinayey, wuxuu ku yidhi xaggee ka timid 100 riyaal? halkani yacni miisaankani kama arko, waxaanan ka ahayn 20,000 riyaal. wuxuu ku yidhi ninkii dahabka iibinayey, hooyada ayaa waxay qaadatay fargal kaasi oo lacagtiisu ay tahay 100 riyaal. ninkii hooyadiisa wuxuu ka qaaday faraantigii, kadibna wuxuu ku tuuray ninkii dahabka iibinayey. kadibna intuu u soo jeestay hooyadiisa ayuu ku yidhi, waayeelada adigoo kale ah ma lahan wax dahaba. way oysay hooyadiisa markii ay maqashay hadalladaasi, waxayna aaday dhanka gaariga. ninkii xaaskiisa ayaa waxay ku tidhi, maxaad samaysay? laga yaabaa inaysan mar kale xambaarin cunugaaga. sidaasi ayay tidhi xaaskiisa, sida inay hooyadiisu u tahay shaqaale iyaga. kadib markii uu canaantay ninkii iibinayey dahabka, ninkii iyo xaaskiisa waxay aadeen dhanka gaariga. wuxuuna ku yidhi hooyadiisa, hoo oo qaado faraantigani haddii aad doonaysid. waxay ku tidhi hooyadiisa, maya wallaahi ma doonayo faraanti, balse waxaan doonayey inaan ugu farxo ciidda siday dadkuba ugu farxaan oo kale. laakiinse adigu waxaad dishay farxaddayda. allaha kuu naxariistee wiilkaygiyow. 6 bilood kadib iyaga oo ku jira xaalkaasi, ninka wuxuu ahaa mid isticmaalo daroogooyin u geysanaya caafimaadkiisa dhibaato. maalin ay hooyadiisa ugu soo gashay qolka isagoo isticmaalaya daroogooyinkaasi, waxayna bilowday inay ka celiso daroogada uu isticmaalayo. waxayna ka tuurtay daaqadda dhammaan wixii uu isticmaalayey. sidaasina waxay u samaysay jacayl ay u qabto wiilkeeda iyo inaysan wiilkeeda waxyeelo ka soo gaarin. ninkii aad ayuu u xanaaqay, kadibna wuxuu bilaabay inuu hooyadiisa ka saaro guriga. hooyadiisa waxay guriga ka soo baxday iyadoo leh, ilaahay ha kaa farxiyo wiilkaygiyow,
wax ku dhibana rabbi kuma tuso muddo kadib ninkii wuxuu waayey akhbaarta hooyadiisa muddo aad u dheer ninkii waxaa asiibay xanuun kaasi oo lala seexiyey isbitaal markii uu ka soo baxay isbitaalka kadib waxaa aad u sii xumaatay noloshiisa wuxuuna waayey shaqadii iyo gurigii uu deganaaba waxaana aad u farabatay deymaha lagu leeyahay alla weyne kor ahaaye wuxuu yidhi wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum wayacfuu can kaiir oo micnaheedu yahay wixii idinku dhaca oo masiibo ah waa waxay kasbadeen gacmihiinnu wuxuuna idinka cafinayaa rabbi wax badan maalin maalmaha ka mid ayaa wuxuu fiirsanayey TV-ga ama telefishinka wuxuuna dhegaysanayey sheekh ka sheekaynaya isxaanfalidda labada waalid isxaanfalidda uu isxaanfalayo qofka waalidiintiisa inuu ka helayo risqi murugadana looga dulqaadayo farajna loogu furayo kadib ninkii wuxuu dib ugu laabtay maskaxdiisa wuxuuna ogaaday xanuunkii asiibay inay sabab u tahay cuqubadii uu ka galay hooyadiisa wuxuu u istaagay si degdega si uu u raadiyo hooyadiisa ilaa uu ka helay wuxuu ka helay hooyadiisa iyadoo deggan qol aad u yar iskana cunaysa waxa ay ku sadaqaystaan dadka wanaagsan wuxuu bilaabay inuu lugaheeda ku dul ooyo iyaduna ilaa ay kala ooysay kadibna waxay kula soo laabatay guriga markii ay cafisay kadib markuu u noqday hooyadiisa baari wuxuu ka bogsaday xanuunkii hayay waxaana u soo laabatay shaqadiisii wuxuuna helay gurigiisii deyntii lagu lahaana wuu iska guday sabab uga timid raaligelintii uu raaligeliyey hooyadiisa iyo ducadii ay u ducaysay awgeed alla weyne kor ahaaye wuxuu yidhi وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا waxaa jiray dhakhtar dhalinyaro ah aabbihiisii faqiirka ahaana uu geeriyooday waxaa la wareegtay korintiisa iyo tarbiyayntiisa hooyadiisa waxay wiilkeeda ku quudin jirtay dharka ay u dhaqdo deriskeeda lacagta ay ka hesho ilaa uu wiilkii ka noqday dhakhtar wiilkii markii uu noqday dhakhtar kadib wuxuu bartay gabar ay asxaab ku noqdeen isbitaalka uu ka shaqeeyo wuxuuna ka dalbaday inuu guursado gabadhii wiilkii wuxuu hooyadiisa u soo kaxeeyey isbitaalka si uu isku baro hooyadiisa iyo saaxiibbaddiisa taasi oo kala shaqaynaysay isbitaalka gabadhii markii ay aragtay wiilkii hooyadiisa way xanaaqday aadayna u murugootay waxayna uga fasax qaadatay wiilkii iyo hooyadiisa inay u socoto ballan muhiima maalintii labaad wiilkii wuxuu weyddiiyey saaxiibbaddiisa sababta ay u fasax qaadatay iyadoonan hooyadiisa si fiican aynan isku baran gabadhii waxay ku tidhi wiilkii waxaan wataa hal shardi oon ku oggolaanayo guurka shardigaasoo ah inaysan hooyadaada ka soo qaybgelaynin xafladda arooskeenna sababtoo ah sannado ka hor waxay imaan jirtay gurigeenna si inoogu dhaqdo dharka haddii ay waalidkeenna arkaanna waxaa laga yaabaa inay diidaan inaad i guursato wiilkii dhakhtarka ahaa aad ayuu la wareeray arrintaasi muusan haysan ilaa hal macallin oo jaamacadda u dhigi jiray oo aadna u ixtiraamo arrinkiisana uu kala tashto kadib wiilkii wuxuu aaday macallinkiisa wuxuuna uga warramay arrinkii macallinkii wuxuu ku yidhi wiilkii waxaan kaa codsanayaa hal arrin markii aad tegtid guriga dhaq hooyadaa gacmaheeda kadibna beri ii soo laabo inshaa allah markaasi ayaan ku siin doonaa ra'yigayga wiilkii markii uu aaday guriga kadib hooyadiisa ayuu ka dalbaday inuu u dhaqo gacmaha wuxuu bilaabay inuu u dhaqo gacmaha si tartiib ah
deedna indhihiisa ayaa waxaa ka soo daatay ilin markii uu arkay siday u muuqdeen gacmaha hooyadiisa. waxay ahayd markii ugu horraysay uu arko ama uu dareemo gacmaha hooyadiisa siday u adkaadeen iyo siday u dildillaaceen, sabab uga timid saabuunta iyo oomada ay ku dhaqi jirtay dharka. sidaasi darteed hooyadiisa waxaa xanuuni jiray gacmaha mar walbo ay istiraahdo wax dhaq ama wax qabo. markii uu gacmaha ka dhaqay hooyadiisa kadib ayuu fadhiistay, wuxuuna soo xasuustay qaar ka mid ah aayadaha allaah, kuwaasi oo inoo dardaarmaya u baari ahaanshaha iyo usxaanfalidda waalidka. wuxuuna soo xasuustay xadiiskii rasuulka sallallahu calayhi wasallam oo ahaa jannada waxay hoos ahaatay cagaha hooyooyinka, iyo sidoo kale xadiiskii ahaa raalli ahaanshaha allah waxay ku jirtaa raalli ahaanshaha waalidka, caradiisana waxay ku jirtaa carada labada waalid. wiilkii aad ayuu u ilmeeyey, wuxuuna taleefonka ka wacay macallinkiisii, wuxuuna ku yidhi, waan kuu mahadcelinayaa macallinkayga, aad ayaad u mahadsan tahay. waxaan qaatay go'aan, hooyadeydana ugama mashquulayo howlahayga. wuxuuna bilaabay in wakhtigiisoo idil uu hooyadiisa ugu kaalmeeyo, waayo qofkii aanan qadarin nolosha hooyadiisa isagana qofna ma qadarinayo noloshiisa. subaxdii ayuu wiilkii aaday isbitaalka si uu ugu bandhigo gabadhii ay asxaabta ahaayeen go'aankiisa, iyo inuu hooyadiisa ku faanayo, iyo inuusan dayacaynin, inuu dayaco iska daaye wax walboo qaaliya uu darteeda u dayacayo. kadibna si deggan ayuu u soo macsalaameeyey. bil kadib wiilkii dhakhtarka ahaa waxaa cajiib la noqday in saaxiibbadiisii iyo ehelkeedii ay ugu yimaadeen gurigiisii iska caadiga ahaa, waxayna aad u ammaanayeen hooyada naxariista badan oo wiilkeeda u hurtay wax walbaa si uu isagu meel u gaaro. waxayna sidoo kale aqbaleen inay u guuriyaan gabadhooda wiilkeedii dhakhtarka ahaa. alla weyne wuxuu yidhi, وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. waxaa jiray nin u dhashay dalka Ameerika oo lagu magacaabi jiray Ronaldo Obos. ninkani markii uu go'aansaday inuu isdilo wuxuu isticmaalay waddo u sahlanayd isaga, taasi oo ahayd inuu iska tuuro dabaqii uu deganaa. kadib wuxuu naftiisa ka tuuray dabaqii uu deganaa biyaanadiisa 10aad, wuxuuna u reebay waalidiintiisa fariin ah in isdilitaankiisu ay sabab u ahayd murugo nolosha uga timid. Ronaldo markii ay ka soo wareegtay dhimashadiisa maalmo kadib, markii baaritaan lagu sameeyey meedkiisii, waxaa caddaatay inuusan Ronaldo u dhimanin dabaqii 10aad ee uu iska soo tuuray, balse uu u dhintay xabad madaxa uga dhacday. intii lagu guda jiray baaritaanka sidoo kale waxaa la ogaaday in xabaddu ay ka soo baxday biyaano ka mid ahayd isla dabaqa uu deganaa Ronaldo Obos. biyaanadaasina waxay ahayd biyaanada 9aad. daaqadaasi ay ka soo baxday xabadda waxaa deganaanin iyo xaaskiisa oo markaasi ahaa waayeel. waxay halkaasi deganaayeen muddo, deriskuna waxay mar walba ka sheegan jireen qayladooda iyo dagaalkooda badan. waxaa kaloo la yaab noqotay isla wakhtigii uu Ronaldo iska soo tuurayay dabaqa, ninka waayeelka ahi wuxuu ku handadayay xaaskiisa inuu xabad ku dhufanayo. isagoon ka warhin ayuu ninkii waayeelka ahaa xabadda riday, laakiin xabadda wuxuu ku riday meel markaasi ka fogeed xaaskiisa oo ku aadanay daaqadda. isla wakhtigaasina Ronaldo iska soo tuurayay dabaqa ay madaxa uga dhacday, Ronaldona wuxuu u dhintay xabaddii madaxa uga dhacday. markii la yimid maxkamadda, ninkii waayeelka ahaa waxaa lagu tuhmay dembi uusan u samaynin si ula kac ah, balse wuxuu u sharaxay qaadiga in isaga iyo xaaskiisa ay dagaalaan wakhti walba, qasabna ay ku tahay inuu ku handado dil. balse wuxuu u malaynayay in baskooladdu aysan ku jirin wax xabada, maxaa yeelay mar walba ayuu ugu hanjabi jiray iyadoo eber ah oo aysan xabadi ku jirin. baaritaan badan kadib waxaa la ogaaday in mid ka mid ahaa qaraabada ninka iyo xaaskiisa uu arkay wiilka ay dhaleen oo baskooladda gelinaya xabad muddo isbuuc ka hora, wuxuuna sidaasi u samaynayey hooyadiisa oo u diiday markaasi inay siiso lacag, wuxuuna go'aansaday inuu dilo hooyadiisa iyo aabbihiisa hal mar.
wuxuuna ogaa wiilka hooyadiisa iyo aabbihiisa mar walbo isdagaalaan inuu ku handadi jiray baskoolad ebera wuxuuna ku fikiray inuu baskooladda geliyo xabad si uu hooyadiisa iyo aabbihiisa uu u dilo wuxuuna doonayay inuu hal dhagax uu ku dilo 2 shimbir balse nasiib wanaag xabaddii maysan ku dhicin hooyadiisa waxayna ku dhacday Ronaldo sidaasi ayuu uga badbaaday ninkii waayeelka ahaa ee dilka ahayd ee lagu tuhmayay arrinka ugu yaabka badan ee qisada ayaa wuxuu yahay in Ronaldo oo boos uu ahaa wiilka ay dhaleen ninka waayeelka ahaa ee lagu tuhmayay dilka iyo xaaskiisa sidoo kale waxa la yaab ah in wiilka uu geliyay baskooladda xabadda si uu ugu dhameeyo hooyadiisa iyo aabbihiisa kadib markii uu arkay in aabbihiisa uusan weli dilin hooyadiisa wuxuu go'aansaday inuu isaga isdilo wuxuuna noqday dilaaga isaga isdilay horay ay Soomaali ugu mahmahday god qiyaanaha qodin haddaad qodana ha dheerayn ku dhici doontida lama oge halkaasi ayna ku dhammaatay qisadii Ronaldo Obos amaba dilaagii isaga isdilay alla weyne wuxuu yiri الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال nin faqiir ah ayaa wuxuu u istaajiyey si tabar yar darawal sita taxi cod daciif ah ayaa wuxuu ku yiri miyaad geynaysaa guri ku agyaala buurta mana haysto wax lacag ah oo aan ku siiyo wuu dhoola cadeeyay darawalkii waday taxiga wuxuuna ku yiri soo raac taxiga hana ka fikirin lacagtii ijaarka darawalkii ninkii faqiirka ahaa wuxuu geeyay gurigiisa ninkii markii uu ka soo degay taxiga waxaa qaabilay caruurtiisa ilaa ay ka su'aaleen aabe manoo keentay rooti si muruga leh ayuu wuxuu ku dhahay maya wallaahi ma idiin keenin wax rootiya waxaan ka xishooday darawalkay soo qaaday inaan ku dheereeyo wakhtiga iyo masaafada anigoo aanan siinaynin wax lacaga ninkii tagsiilaha ahaa wuxuu maqlay jawaabta uu ku jawaabay ninkii maskiinka ahaa wuxuuna jeclaystay inuu dhammaystirto ajirkiisa wuxuu u soo daadegay buurta hoosteeda wuxuuna u soo iibiyey 5 bac oo rootiya wuxuuna soo aaday iyaga xaggooda kadibna wuu siiyey ninkii tagsiilaha ahaa wuxuu arkay caruurtii ninka faqiirka ahaa uu dhalay oo rootiga ku cunay daqiiqado gudahooda baahi daran oo haysay awgeed wuxuu isku dayay inuu qariyo ilmadiisa wuxuuna ka soo kaxaysay gaarigiisa buurtii ilaa uu ka yimid magaaladii isagoo u socda inuu shaqaysto wuxuuna raadinayay dad uu ku qaado gaariga durbadiiba waxaa istaajiyey nin dalxiisaa ah wuxuuna ku yiri waxaan rabaa inaad igeysid elaboorka tagsiilihii wuxuu geeyey ninkii dalxiisaha ahaa elaboorka markii uu geeyey elaboorka kadib ninkii dalxiisaha ahaa wuxuu siiyey tagsiilihii $2,000 oo lacagta laga rabayna keliya waxay ahayd $500 oo ninkii darawalka ahaa isagoo jooga weli elaboorka ayuu haddana arkay nin doonaya in la geeyo hotel ka mid ah hoteelada ugu caansan magaalada wuxuuna siiyey $1,000 ninkii darawalka ahaa wuxuu aaday suuqa wuxuuna soo iibiyey qudaar hilib iyo macmacaan waxaasoo idinlan wuxuu saartay gaarigiisa si uu ugu qaado ninkii faqiirka ahaa iyo reerkiisii ku sugnaa buurta
maxaa yeelay wuxuu ogaaday inuu allah ugu arsaaqay waxaanoo idil sabab uga timid ninkii uu caawiyey si niyada ilaahay dartiisana ah alla weyne wuxuu yidhi من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ninkii tagsiilaha ahaa mid ka mid asxaabtiisa ayuu kula kulmay meel uu ka iibinayay hilib ninkii waxa uu ku qasbay tagsiilihii inuu u raaco xaafadiisa si uu uga qayb galo munaasabad lagu casuumayo dad wanaagsan ninkii tagsiilaha ahaa wuxuu raacay saaxiibkiisa kadib markii ay tageen gurigii saaxiibkiisa wuxuu arkay israaf iyo cuntooyin aad u fara badan markii ay casheeyeen kadib waxaa miiska ku haray qayb dhan oo cunto ah qofna aysan taaban yacnii aysan waxba ka cunin ninkii wuxuu yidhi xaggeen geeyaa cuntadan ninkii darawalka ahaa wuxuu yidhi aniga ayaa qaadanaya markii uu soo macsalaameeyey tagsiilihii saaxiibkiisa kadib wuxuu aaday reerkii ninkii faqiirka ahaa wuxuuna siiyey wixii uu soo iibiyey oo idil iyo wixii uu ka soo qaaday gurigii saaxiibkiisa ee lagu martiqaaday isaga ninkii faqiirka ahaa wuxuu ku dhowaaday inuu la ilmeeyo farxad darteeda intii uusan ka soo tegin ninkii tagsiilaha ahaa gurigii ninkii faqiirka ahaa wuxuu maqlay isagoo taagan markaa albaabka gadaashiisa codkii carruurta iyagoo aad u qaylinaya farxad awgeeda sida inay milkiyeen wax aad u weyn oo kale ninkii tagsiilaha ahaa waxaa ka soo daadatay indhihiisa ilin isagoo aad ula xanuunsaday reerkaasi waxa ay ku sugan yihiin oo dhibaato ah wuxuuna ugu duceeyey inuu allah u naxariisto uuna wanaajiyo wuxuu kaloo ku duceeyey inuusan allah ina oofsan innaga oo masaakiinta ka gaabinayna arrinkooda aanana ka warhaynin xaaladooda alla weyne wuxuu yidhi يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون waxaa jiray nin u dhashay dalka Ciraaq wuxuu ahaa hilible yacni wuxuu ka ganacsan jiray hilibka maalin walba wuxuu soo kaxeen jiray lo kadibna wuu qali jiray xaalkuna sidaasi ayuu ku sii socday maalmaha ka mida wuxuu arkay haweenay taalla waddada dhexdeeda taasi oo ahayd mid la geliyey middi wuxuu ka soo degay gaarigiisa si uu u caawiyo haweenaydaasi wuxuuna ka siibay middidii kadib waxaa yimid dadkii waxayna ku eedeeyeen inuu isaga dilay waxaana yimid boolis si ay u xaqiijiyaan dilkaasi cidda ka dambaysay kadibna wuxuu bilaabay ninkii inuu u dhaarto si uu ugu caddeeyo inuusan dilin isaga balse maysan aaminin wayna kaxeeyeen waxayna ku xidheen xabsiga boolisku waxay kiiska baarayeen muddo 2 bilood ah kadibna waxaa lagu xukumay ninkii in la daldalo markii la gaaray xilligii la daldali lahaa wuxuu ku yidhi askartii waxaan rabaa inaad iga dhegaysataan hadalkan aan idiin soo wado intaydan idaldalin ka hor wuxuu yidhi waxaan ka shaqayn jiray doomaha ka hor intaanan noqon hilible waxaan dadka goysiin jiray webiga maalmaha ka mida waxaa doonta soo raacday haweenay aad u qurux badan aad ayayna ii cajabisay waxaan aaday gurigeeda si aan u mehersado balse way diidday sanad kadib waxaa doonta soo raacday isla haweenaydii diidday inaan guursado waxayna sidatay cunug yar kaasina wuxuu ahaa cunuga iyadu dhashay waxaan isku dayey inaan hawaysto iyada balse way iga diidday waxaan isku dayey dhowr mar sidaasi balse way diidday
wuxuu yidhi kadibna waxaan ku handaday cunugeeda yar inaan webiga ku tuurayo haddaynan nafteeda ii dhiibaynin waxaana ugu dhaartay inaan cunugeeda webiga ku tuurayo haddii ay diiddo mar kale wuxuu yidhi ninkii si aan iyada u cabsigeliyo waxaan lugta ka qabtay cunuggii yaraa madaxiisana webiga ayaan u foorariyey kadibna cunuggii ayaan madaxa biyaha u geliyey cunuggii yaraa wuxuu bilaabay inuu cod xooggan ku qayliyo hooyadiisana sidii ay u diidday inay isku kay dhiibto xanaaq daran kadib cunugga yar ayaan hoos u sii geliyey webiga ilaa uu ka joogsaday codkii uu ku qaylinayey kadibna waxaan toos ugu tuuray webiga wuxuu yidhi kadib markii aan dilay wiilkii yaraa waxaan bilaabay inaan hooyadiisana dilo kadibna waxaan ku tuuray labadoodii webiga waxaana iibiyey doontii haddana waxaa laygu ciqaabayaa dembigii aan ka galay haweenaydaasi iyo cunuggeedii ugu dambayn wuxuu yidhi ninkii lagu soo eedeeyey dilka anigu maanan dilin haweenayda lagu dilay midida anigu maanan dilin ee raadiya dilaagaasi intuusan dilin dad kale ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين waxaa jiray nin dhallinyaro ah oo markaasi ahaa faqiir wuxuu lahaa akhlaaq wanaagsan wuxuuna mar walba ka baqi jiray allaah wuxuu guursaday gabar saalixada kadib markii ay ka soo wareegtay guurkoodii 2 bilood waxaa soo dhoweed ciidul adxaa ay uga dhinneed 3 maalin oo keliya muusan haysanin wax lacaga uu ugu soo gedi lahaa xaaskiisa waxyaabaha ay u baahan tahay maalinta ciidda ninkii aad ayuu u murugooday maxaa yeelay wuxuu ku hanweynaa inuu ka farxiyo xaaskiisa maadaama ay ahayd ciiddii ugu horraysay oo ay wada ciidayaan subaxdii dambe wuxuu u tegey hooyadiisa hooyadii markii ay aragtay wiilkeeda oo murugaysan waxay weyddiisay sababta ka murjisay markii uga qisooday waxa ka murjiyey kadib way dejisay waxayna ugu ducaysay inuu allaah u fududeeyo arrinkiisa kadib waxay u sheegtay lacag yar oo ku jirta akoonkeeda waxayna siisay kaarka akoonkeeda si uu la soo baxo lacagta inkastoo uu diiday inuu hooyadiisa lacagta yar ka qaato haddana iyada ayaa ku qasabtay ninkii wuxuu qaatay kaarkii wuxuuna aaday xagga akoonka lacagtii ayuuna kala soo baxay kadibna wuxuu aaday halka lagu sarrifo lacagta si uu u soo sarrifto lacagta markii la soo gaaray markiisa gabadhii ka shaqaynaysay halka lagu sarrifo lacagta markii ay bilowday inay siiso lacagta ninkii ayaa wuxuu ku istaagay lacag badan oo isku xihan oo markaasi dhulka taallay wuxuuna sii saaray lugtiisa iyadoo aynan cidna arkaynin waxaana bilaabatay in shayddaanku fikraddiisa geliya rabitaan wuxuuna isweyddiinayey ma waxaan u dhiibaa lacagtani gabadha shaqaalaha ah mise aniga ayaa qaata kadib waxaa indhihiisa ku soo horsawirmay sawirkii xaaskiisa nafsaddiisa ayuuna weyddiiyey sidee baan uga farxinayaa xaaskayga ciidan iyadoo aan weli ka zuulin carruusad kadibna wuxuu iska dhigay qof xiranaya xarigga kabihiisa kadibna wuxuu qaatay lacagtii wuxuuna u baxay si degdega isagoo ku fikirayay wixii uu soo gedi lahaa xaaskiisa ninkii dhallinyarada ahaa isla markiiba waxaa u soo laabtay caqligiisa wuxuuna soo xasuustay sida uu noqon karo qofka iska leh lacagta wuxuu dembidhaaf weyddiisay allaah wuxuuna ku laabtay halkii uu ka soo qaaday lacagta wuxuuna u dhiibay lacagtii ninka waardiyaha ka ahaa halkaasi ninkii waardiyaha ahaa aad ayuu u farxay wuxuuna u sheegay in lacagtani uu raadinayay nin sheekh ah wuxuuna ugu duceeyey khayr iyo liibaan qofkii u soo celiyaa lacagtiisa ninkii dhallinyarada ahaa wuxuu ku laabtay guriga waxayna ku xamdisay allaah inuu ninkeeda celiyey lacagtii baadida ahayd waxayna ku tidhi ilaahay ayaa inoogu beddeli doona lacag xalaal ah in shaa allah subaxdii dambe ninkii wuxuu la cajabay xaaskiisa walaalkeeda oo u yimid iyaga weliba isagoo aad u faraxsan wuxuuna siday hadiyado iyo macmacaanka ciidda
wuxuuna u dhiibay walaashiisa lacag aad u badan wuxuuna ku yidhi shalay duhurkii ayaa adeerkeennana siiyey booskii uu xoogga uga qaatay aabbaheen wuxuuna naga dalbaday inaynu cafinno intaasina waa adiga nasiibkaaga waxayna ku tiri ninkeeda dhulkaasi waxaa qaatay adeerkayga dhimashadii aabbahay kadib markii ay ka soo wareegtay 3 sano wuxuu inoo keenay waraaqado wuxuuna inoo sheegay inuu dhulka u iibiyey aabbaheena oo u sadaqeeyey lacagtii dhulka ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaana qadaray inuu shalay towbad keenay xaqa ay dadku ku leeyihiinna uu iska celiyey kadibna waxay ku tiri ninkeeda lacagtii aad celisay ilaahay beddelkeeda oo khayr badan ayuu ina siiyey maanta run ayuu sheegay rasuulka sala allahu calayhi wasallam markii uu yidhi إنك لن تدع شيئا لله إلا أبدلك الله به ما هو خير لك منه kadib ninkeedii wuu dhoola caddeeyey wuxuuna u sujuuday allaah isagoo ku mahadinaya kadib wuxuu ka idin qaatay xaaskiisa ninka la dhashay wuxuuna qaaday qaar ka mida wixii uu keenay ninka la dhashay xaaskiisa wuxuuna u geeyey hooyadiisa sidoo kale wuxuu siiyey hooyadiisa lacagtii ay lahayd ee uu kala soo baxay akoonkeeda wuxuuna ugu hambaliyeeyey ciidda wuxuuna ku yidhi ducadaada barakadeeda ayuu allah igu karaameeyey iguna asturay alla weyne kor ahaaye wuxuu yidhi إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا